fursad ii siiyey imaanshahaygii inaan kaga faa'iidaysto furidda wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. waxaan halkan u imid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed. aniga markaan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen wada saaran. fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. runtii waa xanuunsateen, waa dhibaatooteen, caruurtiinii iskool way aadi waayeen, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad waa u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.